السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين وايدين السلام ميل والبعض شوكتان وعبدي محمود قلع برنامج كيدين كي منشري معاد كوالي النمو بدنا وحو كهالله arrimaha qoyskii caruurta mararka qaarkoodna wuxuu ka hadlaa arrimaha siyaasadda iyo bulshada waayo siyaasadda iyo bulshada haday inoo hagaagaan wax walba waa inoo hagaagayaan walaalayaal maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo su'aalo ka soo noqday hadalkii ku saabsanaa Sheekh Saciid Raage iyo lacagtii masaajidka Sakiina iyo ma garanaysaa arrimo uu Kanada ka sheegay iyo nolosheeda oo aan sidiisa ka duwan uga hadlay dadka inta badan wixii aan sheegay runtii aad bay u taageereen laakiin dadka qaarna waa ay dhaliileen oo waxay yiraahdeen inaad sheekha ka hadasho maaha ama sheekhu wuxuu ka hadlayaa xaq Ilaahay adna nin adduunyo tahay arrimo caynkaas horta marka u horeysa dalkeena inaynu joogno qof walba waa jecel yahay dadka Soomaaliyeed oo dalkii ka soo baxayna wax khiyaar uga soo baxay ama iyagu rabitaan uga soo baxay waa yar yihiin waa la khasbay inay ka baxaan dalkii waxaynu ka dhignay meel aan la degi karin meel aan lagu noolaan karin colaad joogto ah ma garanaysaa abaaro barakicin musuqmaasuq qabyaalad iyo si dadka laga tira badan yahay dhibaatooyin aynu abuurnay weeye waxaasoo dhan dhibaatooyin aynu abuuray weeye marka qof dhibaataysan wuxuu aadayaa meeshii uu nolol ka heli karo waana waajib dadku markay dhibaato la kulmaan inay qaxaan oo haajiraan asxaabtii baa haajirtay oo dhul gaal u haajirtay waad ka war haysaan siirada taasi waa mid maanta ka taagan dhulkeennii runtii meel lagu noolaan karo runtii ma aha maanta waxaan daawanayay ninka duqa magaalada Burco ka ah mayorkii Burco oo la dadkii gaaja dhamaynaysa waxaan kaloo daawanayay dad laga soo duubay video dadkaas waxay ka soo qaxeen Amaara meesha la yiraahdo oo ciidamadii dawladdu inta ka tageen al-shabaab qabsatay meel walba dhibaatooyinka caynkaas ayaa dalkeennii ka taagan waa dhibaatooyin marka aynu abuuray oo gaamuray oo muddo dheer jiray see marka nolol u suura galaysaa meel caynkaas oo kala nolol waa adag tahay inay suura gasho waa adag tahay inay raaxo ku qabaan dadku waa adag tahay dadku inay meel caynkaas oo kala joogaan qof walba wuxuu isleeyahay xagee uga fakadaa naftayda iyo caruurtayda inay ku dhintaan bay ka baqayaan haddaan xabadu dilin gaaja disho horta haddii aynu Soomaaliya runta rabno waa inaynu horta bal meeshii iyo deegaankeena aynu ka dhigno meel la degi karo hadda ma aha meel la degi karo iyo meel lagu noolaan karo midna waayo wixii nolosha suura gelin lahaa oo dhan baan jirin shaqaan jirin maxaan ku yiraahdaa deegaan wanaagsan baan jirin nabadgelyo aan jirin maxaan ku yiraahdaa yani dhibaato bini aadan qabsata tii ugu weynayd oo dhan baa ina haysata marka chronic bay noqotateeno waayo jiilkii labaad baa maaragtay waxa ku dhex jira hadduusan kii saddexaad ba ahayn marka horta hadaynu doonayno inaynu maaragtay dhulka gaalada ka badbaadno waa inaynu ma garanaysaa horta dhulkeena xasilino oo ummadeena iyo dadkeena u ogolaano inay ma garanaysaa ay suuragal noqoto inay halka ku noolaadaan taasi waa mid labaad hatta wadamada muslimiinta hadaad fiirisid markii dhibaatadeen ugu badnayd oo 1993 oo kale iyo Sacuudiga soo tarxiilayay dadkeena Canada waa soo dhaweynaysa nolol bay siinaysa guriyay siinaysa Sacuudiguna waa tarxiilayeen Kuwait meel walba Carabahoo dhan iyagoo magaranaysa hodana oo qani ah ninkii danjiraha ahaayoo Soomaaliyeed oo aad iyo aad qaaliga u ahaa Allah u naxariistay looran jiray Maxamed Cismaan Umar Maxamed Cismaan wuxuu yiri buug qoray la yiraahdo waagaas dhibaatadu aad u dhacayso baydhabo iyo meel walba lagu baqtiyay buuga wuxuu u bixiyay A Nation Driven to Despair yani waa ummad la hoojiyay hoog baynu badna ummadeennii marka waxyaabaha uu ka hadlay Maxamed Cismaan waxa kamid ah wuxuu yiri wuxuu ka hadlay dadkii u gargaaray Soomaaliya markii dhibaatadu runtii ay ugu baanayd kulli waxay ahaayeen wadamada gaalada oo reer galbeedka malaayiin dollar bay bixiyeen carabtiibu soo qaatay $30,000 $20,000 $100,000 kuwa ugu badan bay bixiyeen
waad ka arki kartaan buuggiisa. wuxuu kaloo buuggiisa ku xusay maxamed cusmaan allah u naxariistee laba wiil oo Soomaaliyeed oo wadamadaas Asia ku xiraa ayuu isagu Hindiyu markaa ka ahaa safiirka ahaa ama daljira ka ahaa ayuu maaragtay wadankay ku xiraayeen buu tagay wuu bariyay wuxuu yiri waan dhoofinaya wadankoodii baan u dirayaa sii daaya waa la sii daayay marka Hindiya ama wadankii ay joogeen yani ma jirin flight toos uga baxa diyaarad inta halka ka qaaday Muqdisho geynaysa ma jirin wuxuu aaday Masar wuxuu weydiistay inay transit ku maraan visa transit waa loo diiday meel kale oo Carbeedna inuu tagay waa u maleynaya waa loo diiday wadan kale oo aan Carab ahayn ayaa markii dambe siiyay wadan oo hadda ma xusuusto laakiin buuggiisa ay ku xusanta marka waxa weeye horta dhulka Ilaahay waa meeshii Ilaahay nabadgeliyo iyo ma garanaysaa uu ka siiyo nolol halkaas adiga dalku ah waxaan aynu maaragtay u hanqal taagayno oo muslim iyo kan iyo magaciisi iyo waynu aragna muslimiintii waxay yihiin ma aha inaynu leenahay diinta islaamka sida faraysa diinta islaamka waxay faraysaa inay soo dhaweeyaan inay wax inoo taraan inay kaalmeeyaan laakiin walaalayaal muslimnimadii diintu faraysay inaguna kuma dhaqano oo waad aragteen sidaynu qabyaalada iyo dilka iyo balaayada u sameynayno dad badan oo muslimiin oo kale wadamo kalena iyana waa sidaas oo kale kuma dhaqmayaan waxa soo hartay wadamada North America iyo Europe runtii marka laga reebo culumada muslimiinta culumada Soomaalida marka laga reebo culumada muslimiinta oo wadamadan timid hawl bay ku jiraan inay wax qabtaan bay ku jiraan way og yihiin in runtii khatar badan jiraan oo ay yimaadeen wadan aan muslim ahayn marka dadkooda kuma yiraahdaan war hal cararo hal laga gooro laakiin waxay ku yiraahdaan war meeshan aynu wax ka asaasno diinteena ku haysano dadka kale oo xataa aan wadamadan u dhashay oo aan muslimiinta ahayna aynu isku dayna diinta inaynu gaarsiino laakiin wadaadka Soomaaliyeed wuxuu qoranaya hal cararo meesha laga qaxo balaaya joogta maxay tahay sababtu marka sababtu waxa weeye waxaynu diidaynaa inaynu wajahno yani mas'uuliyadda meesha mas'uuliyad baa taala waxay u baahan tahay adkaysi fara badan adkaysi aqooneed adkaysi dhaqaale in dhaqaale dadku ay la yimaadaan ay hawlaha ku qabtaan inay aqoon la yimaadaan iyo midnimo intaas oo dhanba waa inagu yartahay marka qofka waxa u fudud inuu wax eedeeyo yiraahdo hal cararo waa isdhiibid marka isdhiibid weeye runtii taas oo kale warata hadda Saciid Raage uu inoogu baaqayo isdhiibo ka cararo ku leeyahay ma arkaysid wadaad Carbeed oo ka carara mid Nigerian oo ka carara ma arkaysid kuwa ka yimid waxaan arkaa Malaysia kuwa ka yimid ma garanaysaa wadankan la Indonesia Lebanon meel walba bay ka yimaadeen waxa weeye waxay sameeyeen yani sidii ay runtii diintooda ku haysan lahaayeen oo dadkooda ku tababari lahaayeen bay sameeyeen hadda tagto Mareykanka iyo meelaha waxay ka sameeyeen maaha masaajid iyo kaliya maaha laakiin waxay ka sameeyeen iskuulo shahaadooyin laga qaato oo lagu tababaro dadka diinta bara imaamadii baa ka soo baxaya imaam dad noqda dadkii ma garanaysaa meydka sidii loo dhaqayo dad diinta wax bara dad maaragtay wacdiya wax walba ka soo baxaya inagu waxba isku meenaadeen sababtuna waxa weeye laba arrimood midda koowaad waxa weeye dadka waxa hogaaminaya dadkoodii aqoonta lahaa iyo dadkoodii dhaqaalaha haystay dadkii hormuudka ahaa ayaa waxa xil iska saaraya inaga qofkeena wax barta wuxuu leeyahay Soomaaliya tagaya in yaroo joogtay oo wadamadan iska joogto wixii Ilaahay siiyay iimaansatay iyo kuwii cararay oo yir wadankii baan ama Sacuudi baan tagaynaa runtii ma muuqato inay wax dheeraad heleen laakiin haday joogi lahaayeen meeshooda ku samri lahaayeen oo community-gooda iyo maaragtay jaaliyadooda xoojin lahaayeen oo hormuud u noqon lahaayeen waxa laga yaabaa in horumarka la gaari lahaa waxa soo haray kuwa dhaqaalaha haysta nasiib daro dadkii Soomaaliyeed gacan adayg baa lagu saliday maba naqaanaba in yani waxyaabaha danta guud in wax loo huro oo hantida wax laga bixiyo maba naqaanaba aad baan u yaabay runtii anigu dadka Soomaaliyeed oo hantida haysta waxa waajib ku ah inay taageeraan hay-adaha dadka u adeegaya oo sida masaajida sida programmada maarta dhalinyarada loo sameeyo sida ma garanaysaa iskuulada waxa soo dhan waa inay taageeraan waa inay ugu talagalaan lacag joogta oo bil kasta ay siiyaan oo sanad kasta siiyaan waa inay ugu talagalaan waayo adduunka cid walba sidaas ay sameynaysaa hadayna walaalayaal dadkeena hormuudka aanay arrimaheena maamulidooda aanay runtii doorka ugu wacan ka qaadan waa adkaanaysaa dadkan inay meel gaaraan wadankan ama dadka Soomaaliyeed
ama gudaha ha joogeen ama dibadda ha joogaan waa adkaanaysaan. midda ugu dambaysa waxa weeye midnimo waa inaynu helo, waa inaynu aqballo inaynu hoggaansano oo dadka isu keen maaragtay qadimo oo maaragtay hore yimaado yiraahdo war waa idin hogaaminayna waxba waa in la taageero, waana in lala xisaabtamo. iyaguna waa inay mas-uuliyaddaas ay ballan qaadeen waa inay fuliyaan. niyad jabka degdega ama degdega wax walba looga tegayo waa inaynu joojino. wax walba waxay u baahan yihiin waqti dheer iyo muddo dheer bay soconayaan. waa in haddaba marka runtii arrimaha yacni muhiimadda ay leeyihiin iyo dadaalka loo baahan yahay oo ay mudan yihiin waa in lala yimaado. marka taa intaasaan uga baxayaa. waxaa taa weheliya dad baa fideogan ka duubay sheekha waxay yidhaahdeen maxaad u soo qaada arrinta. anigu aad baan u yaaba arrinta inaan la soo qaadin, yacni in ay u muuqato in la soo qaada inay u muuqato dhibaato. anigu runtii waa fahmi waaye. haddii walaalayaal wax walba aynu qarino oo aynaan isla xisaabtamin oo aynaan waxba isweydiinin maxay arrimaheenu noqonayaan. anigu keliya sheekha waxaan weydiiyey lacagtii uu ururiyey oo uu ballan qaaday inuu dhiso halkaa Toronto uu ka dhiso school iyo magaranaysa community center uu ka dhiso. arrintaas ma hirgelin. lacagtaas warbixin naga sii baan iri. anigu taa ceeb uma arko, welina waa ku taaganahay taas oo waxaan weydiinayaa sheekha runtii inuu dadka Soomaaliyeed u caddeeyo arrintaas. haddii aan caddeyntaas u imaanin waa adkaanaysaa dadka Soomaaliyeed inay kalsoonidu ku soo noqoto oo magaranaysaa ay waxyaabaha caynkaas oo kala taageeraan. dhaawac baa gaaraya. marka si dhaawaca looga hortago waa laga maarmaan Sheekh Saciid Raage inuu caddeeyo lacagtii uu u ururiyey magaranaysaa iskuulkii iyo community centerkii uu ku magacaabay Sakiina. waa laga maarmaan taas. anigu taa ceeb uma arko. haddaan weydiiyo waxaan u arkaa waajib inay tahay. dad badan oo Soomaaliyeed baa isxilqaamay oo lacagtaa ururiyey doonayayna maaragtay ama rajaynayay in wax muuqda oo dadkooda wax tar u leh in maaragtay lagu qabto. marka hataa haddii meel kale wax looga qabto aan Toronto ahayn u malayn maayo taas inay ansax tahay. waxay noqonaysaa ballantii oo la jabiyey. haddii marka Toronto wax suuro geli waayeen waxa waajib ah in dadkii waxoodii loo celiyo oo lala hadlo oo la yiraahdo wixiina waa kuwan ma garanaysaa waa suuro geli weydo waxaan rabnaa. anigu sidaasaan u arkaa xaqu inuu yahay oo wanaagu yahay. marka ama qofkii ma garanaysaa isagu le wax walba markii dadka haddii maaragtay arrimuhu dadkii hormuudka isaga dhigay hadday wixii loo igmaday ay qaban waayaan yaan laga daba tegin. taa uma arko inay tahay wax saxa, umana arko wax horumar keenaya ama bilaya waxyaabaha aynu doonayna inuu gaaro. waxaan kusoo gabagabeynayaa dadka Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan dhibaatada yareeya. weliba dhibaatada dalka gudihiisii ka taagan yareeya. dadka aad dilaysaan, barakicinaysaan, dhibaatada geysanaysaan yareeya. waxa dhibaatooyinkaas oo dhan inoogu wacan waxa weeye waa mashaakilka aynu abuurayno, innaga abuurayna. marka waxaan rajaynayaa in la garto in dhibaato dambe oo aynu abuurnaa aanay runtii yacni waxaynu ku xamili lahayn ama adkaysigeedii inuu inaga dhammaaday. waa in dadka Soomaaliyeed fahmaan wax walba inay xad leeyihiin. yacni xadkii baynu gaaray. wax dambe oo dhibaatooyin dambe aynu ku xamilno ma jiraan. walaalayaal isu imaada, waddankiina dhista, iska daaya waxaan maaragtay iyo balaayadan iyo qabyaaladan iyo waxaad kala cayrsanaysaan. waxba isma dhaantaan. dad isku mid aad tihiin, ma kala sarreysaan. duruufo isku mid idin haysta, hanti isku mid baad ka tihiin, aqoon isku mid baad ka tihiin, ilbaxnimo isku mid baad ka tihiin. maxaad isku haysataan? kaliya waxa la isku haystaa waxa weeye waa qof walba wuxuu leeyahay anigu aan dominant ahaado, anigu aan maaragtay xaq darro ku kaco, anigu aan kuwa kale maaragtay dhib. taasina ma suura gelayso. intaas maanta kusoo gabagabeynaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.